waxa aad shaqaysay kafan baad ka qaadanaysaa taaha ilaawin hadda waxaan qaadan may sida nasiibka aad ka qaadanaysaa waa kafan hiya alqanaacatu laa tabqi biha badala fiiha an-naciim wa fiiha raaxatu al-badani انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن انت قوالا لهيدا الدنيا نوعيدا kala duwan bal hadda waxaad eegtaa dadkii dhamaanteed milkiyay waxa ay kala tageen waxa uu ahaa in yaro lagu duubay الأسباب الباعثة على ذكر الموت sababaha keena qofku inuu geerida xusuusto waxa kamida hadaynu geerida xusuusanayno وينو دب يرانيا عبادته يا علايس كيلاده وينو دب يرانيا بعدka aynu fadhino qofku markuu si dhaba u xusuusan yahay waxa ka dambeeya bacadka uu fadhiyo 20 daqiiqo khudbada uu dhageysanayo ma dhibayso hadii dareenka geeridu uu ku weeyo aakhira si dhaba u xusuusanayo waxyaabaha dhib yareeya waxa kamid ah ziyaaratul qubuur inaad xabaalaha soo booqato inta dadkan iyo dunyadan ba iskaga dhaxbaxdo caawa ama salaada hore ama fiidkii bal xabaalaha soo booqo ama kuwii saaxiibada ku jireen ama waalidkaaga ama ummadda islaamka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xabaalaha booqda aakhirada xusuusinaya waxa kamida dadka dhintay oo aad meeridooda ka qayb qaadato sida ehelkaaga waynu aragnaayo waxaad ku inay ku dhimanayaan qof dhintay haday eegaan ama meydhaan way ka carraanba wadaadkii qaxwa qaadanaya u doona bay yiraahdaan ha meydhe islaantii aayad kursida taqaanay u doona bay yiraahdaan waxaad moodaa inuu qabsanayo oo ay ka carrayeen qofkan sidoo uu qombobay ee uu qallafay ee uu baqtiyay waa inaad eegto oo adigu aad ka qayb qaadan karto mayristiisa si adigu waana qaadato mushahadatu almuhtadariin wahum yu'aanuna sakaraat almaut wa talqiinuhum ash-shahada dadka sakaraadka inaad eegto oo aad dul fadhiisato naftii cagaa ka soo baxaysa miska ka soo baxaysa qaarka sare ku hadhay dhakada ka sii boodaysa oo tawxiidka u laqinto bal in wax kugu kordho jinaasadooda raacdood ku tukato adoo qabriga eegaya iyo qofkan dhintay oo aan muraadiyo kale iyo wax kale oo inagu badan iska dhaafaya quraanka kariimka akhrida siiba aayadaha ka hadlaya geerida wajaat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahi inaad eegta cirada iyo cudurka iyo dadka nolosha ka dhacay aafa ku dhacday daraadeed oo isbedelka jirkaaga ku dhacay rifanka iyo lisanka iyo isbedelka ku yimi adiga iyo ummadda kaleba inaad hoos u eegto oo sawiradaadii hore iyo kuwa maanta bal hada aad isu eegto wax ma soo kordhayaan talow mise waa la sii socdaa الظواهر الكونية waxyaabaha inagu dhiiri gelin kara inaynu geerida xusuusano waxa kamida الظواهر الكونية waxyaabaha caalamka ka dhacaya duufaana iyo burkaanayaal iyo acaasiir mudamira balaayooyin kala duwan aynu muuqaalkooda imika la soo ururiyo aynu caalamka ku arkayno waxa soo dhan waxyaabaha ku xusuusin kara weey waa inaynu xusuusanaa geeridu inay leedahay sakaraad iyo kulayl ka duwanka cudurrada kale dhan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam عائشة حاسكيسية باينو سفينيسا markuu sii dhimanay iyadoo sakaraadkiisu aanu la mid ahayn ka faasiqiintii cusaada xanuun hala haado laakiin waa takriim wa tadhiir ilaahay baa kor ugu qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku sharfaya waxay leedahay waxa hor yaalay weel biyo ku jiro ayaa nabiga hor yaalay faja'ala yudkhilu yadahu fil maa'i fayamsahu biha wajhahu wa yaqul man tu gacanta galiyo weelka biyaha hortiisa yaala ayuu wajiga marinaya wuxuu leeyahay la ilaaha illa allah inna lil mawti sakarat intu ashaataaba nabigu wuxuu leeyahay malagu wuxuu leeyahay kulayl riwaayada bukhari waxa ay tilmaamaysaa wuxuu leeyahay allahumma inni ala sakarat al maut ilaahay oo iga fudaydi sakaraadka mawtka wa rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa xanuun adag oo ka duwan xanuunada kale oo dhan wa tub mimma janayta wa anta hisu وكن منتبها قبل الرقاد أترضى أن تكون الرفيق قومي لهم زاد وأنت بغير زاد وحمدان إن أتكتوبتك أنت أما إنو كتوبتك أنا وحينو قراني الدنوبة أينو سوچيدنا إنتينا سيحان كهر وإنينا رالك النقونين إنو راعنو إنقو بلا سهاية داد سهاي سيته آد بوقفكو قريب سدا أوليا هدي الله إلا دوا الله صفريا oo uu raaco qolo wada sahaysita kaashkii iyo raashinkiiba sita isaguna uu suka yahay oo faramaran yahay uu fikraa wuxuu raad dadkan sahaybay sitaan maxaad miyaad martiyaysaa ma waxbay ka siinayaan adiguna sahay soo qaado sidaas oo kale waa inuu qofku u fikraa
oo dadka saalixiinta sahayda urursanaya markuu arka isna uu sahayda soo diyaarsaday ila safar baa wada sugayay lilmawt rusul qabla malaku wuxuu leeyahay dhambaal wadayaal ama kuwa fariimihiisa sida oo ka soo horeeya